dhegaystayaal intiina barnaamijyadan ku taxanay sidaad horeba u ogaateen cigaal ilay wuxuu ahaa nin dhiiran oo wiilwaal far dheeraatay ku noqday wax kale iska daayay gurigiisa ayuu u daba maray sidaa darteed buu garaadku in badan ku dadaalay inuu u helo marmarsiyo uu ku dilo marnaba se taasi uma suuro gelin waxaana u dambaysay xeeshii ay afadiisu maamisay waa halku xamay sheekadii la baxday ee geedka shir ka dhacday cigaalna uu ku degmi waayey wiilwaal oo ay ka go'an tahay inuu dilo ninka dahaba soo damaaciyey ayaa iyadii ka duraantay inay magaciisa u sheegto markaas bay ku tidhi cidna magac dhabi maayee tilmaan baan ku siin habeen dambe intaan u yeedho markuu ii yimaado ayaa ninka go'iisa sare tafta ka goynayaa adiguna markaad geedka isugu timaadaan waxaad isu fiirisaa go'iisa iyo go'yaasha ragga kale ninka isoo hawaystay waa midka uu go'iisu taf go'naan doono hawraarsan ayuu yidhi habeenkaana sidaas bay ku kala seexdeen maantii lagu ballamay ayaa la isugu yimi geedkii lagu shiri jiray siduu tashigu ahaana xalay gelinkii hore oo dhan wuxuu cigaal la joogay dahabo oo uu qalbigu u ruxanayay cawaysin dambe ayuu ka dheelmaday isaga oo faraxsan asii aan ogayn go'a uu huwan yahay inuu taf go'an yahayoo mandiil ay nabasta soo gashatay ay dahabo kaf kaga siisay had iyo jeer cigaal ilay geedka shirka wuu ku soo hormari jiray maalintaasna iyada oo rag yari fadhiyo ayuu soo gaaray go'iisii intuu doonyooday ayuu nin ay shaxwadaag ahaayeen jalo la dhigtay cabbaar kadibna intay shaxdii iska joojiyeen ayay ku biireen raggii kale oo marna kaftamaya marna iswaraysanaya waxay kaftanka iyo iswaraysigaba ku sugi jireen garaadka oo ay u badnayd goor uu raggu jectaday inuu geedka yimaado cigaal oo dhagaha u raaricinaya gabyaatix uu dhowaan tirshay ragga ku maaweelinaya ayaa gundihiisa eegay suu wuxuu arkay go'dii uu doonyeysnaa qaybtiisa hoose oo cad idili uu ka maqan yahay markaas buu inta yaabay hoos isu weydiiyey talow go'u waaba cusbaaye yaa tafta gooyey dareen baa galay weli wuxuu xusuusan yahay shirkii hore siduu ugu sigtay wuxuu u qaatay kanina inuu yahay shirqoo la rabo in dilkiisa loogu marmarsoodo sow inuu haddaba si deg deg ah maanka uga shaqaysiiyaa lama gudboonaan markaas buu sidii isaga oo la faqaaya raggii geedka fadhiyey midba mar soo dhinac fadhiistay go'ii uu nin waliba huwanaa ayuu taftiisa cad ka gooyey si go'yaasha la qabo oo idili ay isku mid u noqdaan kiisa keliyihiina aanu u taf go'nan goortaas goor aan ka fogayn ayuu wiilwaalna madashii soo gaaray halkii geedka ugu hooska badnayd ayuu salka dhigay markiibana wuxuu bilaabay hadal hadoofaho uu ku qarinayo dantii dhabta ahayd ee uu shirkaba u wacay wax yar kadibna intuu hadalkiisi kadiisa u hakiyey ayuu seeftiisii galka kala soo baxay tii oo gacantiisa midig ka warac leh ayuu la dul tegay cigaal kuna yidhi muxuu cigaalow go'aagu la taf go'an yahay kiina isaga oo aan jawaabin ayuu fiiriyey qaybta hoose ee go'iisa wuxuu iska dhigayaa wuxuu garaadku sheegayo nin aan markaas ka hor warba u haynin haddana raggii shirka fadhiyey intuu isha wada mariyey ayuu wiilwaal kor u eegayoo ugu jawaabay garaadow waa runtaayo go'ayga cad waa ka maqan yahay maxaase aniga igu goonni ah haddiiba inta badan ragga meesha fadhiya ay go'yaashoodu wada taf go'an yihiin mar qura ayuu nin waliba go'iisii hoos u eegay mase cad dhan baa ka maqan yaab baa lala kala jeestay garaadkiina amankaag buu la madax wareeray maalintaasna cigaal xujo waa loo waayey xirribtiisii weynayd ayaa badbaadisay ha yeeshee wiilwaal weli ma samrin goor aan la filayn ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey isagoo guddoomiyey cigaal mooye ragga kale inuu geedka ku kala dareero sababta sidaa degdega uu shirka ugu soo gebagabeeyey waa la garan waayey waxaase ka daraydoo nin sheega la waayey sababta uu cigaal keliya ula haray inkastoo aan cidina la ogeyn haddana waxaa ka go'nayd inta aan qorraxdu dhicin inuu cigaal ka faraxasho sidaasna uu ku eedsiiyo dhiiridii uu afadiisa ku hawaystay waxaa geedkii isugu soo haray wiilwaal cigaal iyo labadoodii sange oo meel u muuqata ugu shakaallaa dabadeedna wiilwaal oo maagan inuu ku asadihiyo sabab ka duwan tii uu ula haray ayaa cigaal ku yidhi in dhoweyd si gaar ah uma aynu kulmin sidaa darteed baan waxaan gartay ilaa qorrax dhaca in aynu iska sheekaysanno innaga oo manjamarayn iyo taxtaxaash banka jigjiga ugu dhex saqaafayna
weedhaas iyada ah cigaal uma riyaaqin, wuu dareensaday, wuxuuse goostay inaanu taladiisa diidin, isla markaana uu aad isaga ilaaliyo. ha la yeelo garaad ayuu ugu jawaabay isaga oo weliba u ilka caddaynaya. waa kuwaa haddaba iyagii oo bartamaha banka dhex saqaafaya, labadoodii baxdowna ku jooga, mid waliba qalabkiisii dagaalka ayuu ku raran yahay. danta garaadku waa cigaal inuu gaadmo ku aao, inuu haad ka helo oo markuu isdhigto uu labada waran isu dhaafiyo. waa kuwaa isgarab wada, labadoodii farasoo si qabow ula kadlaynaya. wiilwaal baa sheekaynaya oo hadba iska keenaya qosol aan bushimaha dhaabsiisnayn. cigaalna isaga oo ka digtoon ayuu ka wargurayaa, ilqooreedda ayuu ka eegayaa. wuxuu og yahay ilmilicsana allaha ka dhigay hadduu ishalmaamo inuu halhaleel kurka kaga jari karo. gacanqaad kasta oo xaggiisa laga fili karo ayuu si dhiifoon ugu tooghayaa. haddii ay cabbaar sidaa ku wada socdeen, wax ilbaad ahna uu cigaal ka waayey, ayuu wiilwaal ku tashaday inuu xeesha bedelo. faraskii uu ku joogay ayuu ka degay, markaas buu cigaalna kiisii ka degay. dabadeedna iyaga oo labadii neef taxaabanaya, qorraxdiina ay sii galbanayso, ayaa waxaa wiilwaal u muuqday haad gorgor iyo dafa miirana oo meel dhulka iyo daruuraha dhexdooda ah ee haabaysa, kolbana dhinac u dilaamaysa. mar keliya ayaa waxaa ku soo dhacday inuu haaddaas cigaal ku jeediyo. markuu kor u eegana uu luqunta ka rido. kolkaas buu inta socodkii faraska iyo kiisiiba hakiyey, wuxuu ku yidhi, cigaalow bal maleeyo maxay haaddaasi ku dhacaysaa? cigaalna ileen waa nin dhab u digtoone, markiiba wuxuu gartay dulucda su-aashii wiilwaal. isaga oo aan kor iyo hoos midna eegayn, indhihiisuna ay gacmaha garaadka dul joogaan, ayuu ugu jawaabay, marba labadeenna kii eega ayay ku dhacaysaa. wiilwaal baa kolkaa candhuuf dib u liqay. waxay ahayd maantii uu naftiisa u qirtay xirib iyo xeel, af iyo adin, sir iyo saaq, sina inuu cigaal ilay kaga saa'id calayn waayey. markaas buu go'aansaday inuu la nabdo. dabadeedna wixii hub ahaa ee uu sitay intuu dhulka ku daadiyey ayuu gacan salaameed u soo taagay, isaga oo ku leh, ina adeerow, galabta laga bilaabo colaadaadu iguma jirtee tayduna ha kaa baxdo. marka hore ooryahayga iyo guryahayga iidaa, mugga xigana garaadka aan ahay sida dadka kale iigu maamuusoo shirka bartida ha igula akeekamin, hana isku kaytaagin. ciyaal bay kolkaa neef kurulay ka soo kuday. inkastoo dhiiladii uu qabay ay laabtiisa weli wax kaga harsan yihiin, haddana hadalkii uu maqlay wuu u bogay. markaas buu ugu jawaabay, waa tahay garaad, taladaada ayay ku dhan tahay, loona noqon maayo. waa hawraarsan iyo guddoon. galabtaasna iyada oo nina aanu midka kale ka irdhaysnayn, ayay reerahoodii u kala carraabeen. waa dambe oo uu gaboobay ayuu garaadku sheekeeyey. wuxuu ku dheeraaday hoog iyo ba wixii uu rag ku falay. wuxuu ku xijiyey wixii isagana ay rag kale ku markadeen iyo tabihii ay uga saa'id caleeyeen. si gaara wuxuu u xusay arrintii isaga iyo cigaal ilay dhex martay ee ay waagii dambe ka heshiiyeen. kolkaas buu sheekadii wuxuu ku soo idleeyey, rag hooyadiisna waan u hayayoo walaalow wax uu ku dhaamo waan waayey. taasoo noqotay hawraar ay soomaalidu ku mahmaahdo, gaar ahaan markii la isla helo tan eebba mooye awood kasta oo kaleba inay soo hodin leedahay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo